magaalada Burco waxaa maanta lagu qabtay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay arrimaha jinsiga gaar ahaan tacadiyada haweenka loo geysto oo ay ka mid yihiin kufsiga waxaana la sheegay in loo baahan yahay in bulshada gobolka Togdheer yeelato qorshe lagaga hortagayo dhibaatooyinka loo geysto haweenka tacadiyada haweenka lagula kaco ayaa la sheegay in muddooyinka u dambeeyay ay Soomaaliland ku soo badanayeen waxaana kulankan ka soo qayb galay qaar ka mid ah haweenka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta dalada haweenka ee UNITA madax ka socotay hay'adaha sharciga oo ay ka mid yihiin booliiska iyo maxkamadaha مسؤولين iyo marsharaf kala duwan waxaana ugu horreyn kulankan ka hadlay Xuseen Laki iyo waliba agaasimaha dalada haweenka ee UNITA Maxamuud Jaamac Aadan ururada maxalliga ah hay'adaha sharciga booliiski maxkamadihii caafimaadkii booliiski kuwaas oo dhan baan iyana ku talagal ku ahaa in goob lagu fuliyo miimadana waxa weeyaan جنتر هذا الضوء لكن وسيب قاعد وسيب فوكس قرينيا تعديات أنت بدن كل عهوي وبعيد الجودة بوليس كصوص عرق كلامك الله يعرف وصرية تعديات توصوص عرق أي صوص عرق وسيرد الرماها بويس سنة كيتو توزن إلى بوحها أفركم أو كيس وأنتوا بدن كفسية لما تقول يلا ويا توكي ترى كل دولة أفر بقى بقربع وعاصو حي كذا عيان وحي كل عيان قيب مجتمع اللي كمله ولو كل يوم مهم سنة وهواك جدوي كل وطرق اللي هويا إلا يسكون حرام طنياش أما عدة كشق يساء أهمها جدك وأي كم بديجين وزارتها قليها فرنت الشرعية محكمتها يبوليس يقوليها يوين شو يدا قليها خلي يشير أهمها وفرد دوبان حكته iyaguna inta badan haya si kastaba ha ahaatee kulankan ayaa noqonaya mid baahi weyn loo qabay marka loo eego dhibaatooyinka xilliga ku gadaaman haweenka gobolka Togdheer oo Bashiir Ibrahim Universal TV Burco.